saaxiibaday waxaan ku faraxsanahay inaan idinku soo dhaweeyo xarunta madaxtooyada qaranka Villa Soomaaliya. waxaa sharafi ah inaad maanta igala qayb qaadataan shirkan jaraa'id oo markii ugu horeysay muddo kadib aan ku ogolaanay in saxaafaddu ay madaxtooyada si xor ah su'aalo ugu weydiiso. qorshaheena warbaahineed waxaa ka mid ah muhiimna noo ah inaanu dadweynaha iyo saxaafaddaba ka xaqabtirno xogta guud oo aanu aaminsannahay inay ka mid tahay hanti qaran oo la wada leeyahay. waxaa noo qorshaysan inaanu si joogto ah u qabanno shir jaraa'id oo aanu uga warbixinayno howlaha qabsoomay iyo kuwa qorshaysan ee madaxweynaha. waxaa qorshaha ka mid ah inaanu saxaafadda siino fursad si ay si xor ah su'aalo noogu weydiiyaan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka jawaabaya xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta dalka ayaa 24 May 2022 u magacaabay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha, taas oo muujinaysa sida uu madaxweynuhu ahmiyad gaar ah u siinayo wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyo istiraatiijiyadda ku aadan xal waara oo laga gaaro arrimahaas. 27 May 2022 madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku daahfuray barnaamijka hindisaha shaqo abuur iyo hindisaha qaran ee dhalinyarada, isagoo ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay inay dawladda kala shaqeeyaan kor u qaadidda fursadaha shaqo ee dadka iyo fursadaha maalgelineed ee dalka. waxaa muddadii u dhaxaysay 31 May ilaa 3 Juun 2022 madaxweynaha dawladda federaalka oo mudnaan siinaya qodobada aasaaska u ah xasilooni siyaasadeed iyo Soomaali heshiis ah uu safar ku tagay deegaanada Koonfur Galbeed iyo Galmudug si uu ugu kuurgalo xaaladaha nololeed ee bulsho gaar ahaan kuwa ay abaaruhu saameeyeen. madaxweynaha dawladda federaalka oo hirgelinaya halku dhigiisa ahaa Soomaali heshiis ah ayaa shir 2 maalmood socday isugu yeeray golaha wada tashiga qaran si loo amba qaado arrimaha hortabinta u leh una baahan wada xaajood siyaasadeed si loo abuuro kalsooni wada tashi iyo nabadeyn bulsho. shirka oo ku dhamaaday isfahan iyo isku soo dhawaansho ayaa waxaa ka soo baxay warmurtiyeedkii aan idin la wadaagay 12 Juun. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa kala hadlay xoojinta taageerada muhiimka ah oo ay siiyaan Soomaaliya gaar ahaan xaaladda bini'aadanimo ee ka dhalatay abaaraha dalka ka jira. waxa uu ka codsaday beesha caalamka inay doorkooda ka qaataan samata bixinta dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. inta aan arrimaha dibadda ku jirno markii caleemasaarku dhacay madaxdii faraha badneyd ee kala duwaneyd ee dalka timid waxaa dhacay shirar doceedyo iyo shirar gaargaar ah oo bilateral ah oo madaxweynuhu la yeeshay madaxdii timid. waxaa isna dhacay maadaama madaxdii IGAD badankeedu ay halkan joogeen in shirkii IGAD isaguna uu halkan madaxweynaha iyo madaxdii kale uga furmay. 15 bishan Juun 2022 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si waafaqsan qodobka 9aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ugu magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka inay si degdeg ah u ansixiyaan si uu uga howlgalo arrimaha hortabinta u leh dawladnimada Soomaaliya, isagoo kula dardaarmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka shaqeysa xoojinta amniga, gurmadka abaaraha, dib u heshiisiin dhamaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dawladnimada dalka. ugu dambeyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada baxdo ku bogaadiyay sidii geesinimada iyo nafurnimada lahayd ee ay isaga difaaceen argagixisadii Al-Shabaab oo ay uga jawaabeen baaqii uu madaxweynuhu ka jeediyay magaalada Dhuusamareeb ee ahaa bulshada reer Galmudug inay hormuud u noqdaan qorshaha dalka looga xoreynayo nabaddiidka iyo shacabka Soomaaliyeed oo u diray baaq ku aadan inay kaalintooda ka qaataan dagaalka ka dhanka ah argagixisada. aad baad u mahadsantihiin mudane Ali Marweyn. waxaanan hadda u gudbaynaa su'aalihiinii qofkii su'aal qabaahay fartanka. dawladda Soomaaliya waxaa Kenya ku matala safiirka talaabada ku habboon isaga ka qaaday oo ahayd inuu shirki ka baxay. talaabada labaad oo aan malaynayo inaad ka warhayso
oo ay ahayd intaana su-aasha ay weydiinay inaad kusii xisaabtantan waxay ahayd dowladda Kenya raaligelin bay ka bixisay warqad bay soo warbixin bay arrintaa ka soo saartay marka halkaasay arrintaasi ay ku ahaatay safarkii Baydhabo waan isku aragnay waa wada joognay marka madaxweynuhu uu barakacayaasha la kulmayayna dabcan waan isla soconay arrinta barakacayaasha iyo dadka ku go'doonsan deegaanada shabaabka waxay qayb ka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka dadka ka soo gaaraya bini'aadanimo marka laga soo tago waxay qayb ka tahay qorshayaasha amni ee dalka dib looga xoreynayo maxaan ilaadaa meelaha ay joogaan argagixisadu shalay waad arkaysay sidii baaqi uu madaxweynuhu galmudug markuu joogay u diray ay reer baxda uga jawaabeen dadka dhulka degan iyo iyagoo dowladda kaashanaya ama dowlad goboleedka ama federaalka ana waxaan rajaynaynaa in insha Allah wadooyinkaas sida ugu dhaqsaha badan lagu furmaan waad mahadsantahay waa su'aal muhiim ah laba arrimoodiba waa muhiim ta koowaad maadaama dhalinyarada meesha la geeyay ay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed again ku magacaaban inay ciidan Soomaaliyeed yihiin ciidan Soomaaliyeed in la soo celiyo maadaama ay hanti qaran yihiin waa lagama maarmaan waxa kale oo lagama maarmaana in hooyooyinka iyo dadka caruurihii ay dhaleen ka maqan yihiin oo aan warka ka hayn muddada dheer inay iyaguna war ka helaan iyana waa lagama maarmaan insha Allah iyaguna way suurtagali doonaan aad baad u mahadsan tahay horta inaad ka warhayso mooyaane shuruucda dalka u degsan bay ka mid tahay inaan wada xaajood iyo is-horfariisi iyo saaxiibtinimo aanayna dhex mari karin argagixisada haddii maxaan idhaahdaa la gaaro ama lagu tago meel ay ka muuqan karto si uun dadku ilaan waa Soomaaliyeed si kale wax loogu xaliyo hadday is soo dhiibin noqon lahayd hadday ka tanasulid fikirka ay dadka ku laayaan ay noqon lahayd na mar walba way furan tahay in si Soomaalinimo ku jirto wax loo xaliyo waxaanu ka aaminsanahay kow inay propaganda tahay I don't know inaad daawatay muuqaalka channel 4 laga sii daayo Jamaal Cusmaan sameeyay koobabka yaryar ee uu lahaa shaabay ku cabaan halka ugu jira meedkii shalay baxday yaa ugu jiray therefore koob yar halkan la soo gashtay iyo tuute dowladda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed lagu handadi karo waxaan aaminsanahay insha Allah mar dhow sida ugu dhaqsaha badan leh anagoo iyadoo la fulinayo qorshayaasha amni ee madaxweynaha in hawlahaasi ay iska soo dhamaan doonaan khasab waana u garab istaagtay shalay dadka deegaanku markii ay nimanka iska celiyeen oo ay muddo hayeen dad waxa u gurmaday oo dhibaatada inta badan gaarsiiyay waxay ahaayeen ciidanka gorgor ee dowladda iyo ciidanka galmudug marka dowladda mar walba qorshaha way ugu jirtaa meel walba iyo cid walba oo Soomaaliyeed oo argagixisadu dhibaato ku hayso inay hiil iyo hoob la garab istaagaan